السلام عليكم. البحر الميت badda dhimatay badda ka yaabisay caalamka badda ay saynisyahanadu u waayeen fasiraad u qalanta waa muuqaalkeena maanta. البحر الميت badda kaliya oo aanu jirin noole ku dhex jira sida dhirta iyo xayawaanaadka badaha kale laga helo. badda ay u safraan dalxiisayaal badan qofnana uusan ku qarqoomayn ee aan u baahnayn dabalyaqaan waa badda loogu yeero the dead sea ama baxrul mayit. baddani waxay dhacdaa juquraafi ahaan xuduudda u dhexayso dalka urdun oo sidoo kale loo yaqaano jordan iyo dhulka reer falastiin ee ay xoogga ku haysato israa'iil. waxayna dhulka falastiin kaga taallaa baddani dhanka dhulka daanta galbeed waxayna baddani u dhowdahay ama ay caan ku tahay dhulkii lagu halaagay gaaladii qowmuluud waana magaalada lagu magacaabo saduum ee uu ka dhacay halaagii qowmuluud. halka ay ku taalo badda dhimatay ayaa sidoo kale ah barta ama meesha ugu hooseysa dunida, taasoo ka dhigan meesha dunida oo dhan ugu hooseyso iyadoo dhulka caadiga ah ka hooseyso joog ahaan in ka badan 400 oo mitir. dhirirka badda dhimatay waa ilaa 50 kilomitir oo dhirir ah halka ballaceeduna yahay 15 kilomitir. waxay badaha kale ee caalamka ka cusbo badan tahay qiyaastii in ku dhow 10 jeer. sababta baxrul mayit badda dhimatay loogu magacaabo ayaa ah inaysan haba yaraatee ka jirin wax nolol ah. biyaha badda dead sea ayaa ah biyo aad u degan marka loo fiiriyo ama la barbar dhigo biyaha badaha kale ee caalamka oo waa sidan biyaha badda dhimatay. baddan baxrul mayit waa mid leh taariikh aad u fac weyn waxayna soo jirtay ilaa 3 milyan oo sano ka hor balse sanad kasta waa mid sii dhammaanayso waxayna saynisyahanadu sheegaan inay sii dabargo'ayso biyo ahaan iyo si guudba. taariikhda waxay sidoo kale warisaa in 150 sano ka hor dhalashadii nebi ciise ee taariikhda miilaadiga ah laga sameeyey baddan baaris cilmiyeed. waxaa biyaha ku shuba baddan webiga urdun sabab la xiriirta cabsida laga qabo sii dhammaashaha baddan ayaa sanadkii 2013 waxaa dalka Mareykanka heshiis badeed ku gaaray maamulada kale ah Falastiin, Israa'iil iyo Urdun. waxaana heshiiskaas uu ahaa in warshad weyn oo biyaha macaanisa laga dhiso koonfurta waddanka Urdun ama Jordan halkaas oo dhuumo waaweyn looga soo qaadi doono biyaha badda cas iyagoo kadibna la geey doono dhanka badda dhimatay ee ku taalo carriga Falastiin. badda dhimatay waxay soo jiidataa malaayiin qof oo dalxiisayaal ah kuwaasoo dalxiis ka sugo u imaada halkan inay ka qaataan jawi caafimaad. dhowr cilmi baaris oo la soo saaray ayaa lagu sheegay in faa'iidooyin badan oo caafimaad laga helo badda baxrul mayit iyo deegaanka ay dhacdo intaba. heerkulka deegaanka ee baddan dhacda ayaa ah mid aad u sarreeya mar walba. waxaa sidoo kale la sheegaa in cusbada baddan ay daawo u tahay cudurro fara badan. sidoo kale dhagxaanta kale ee badda dhimatay laga soo saaro ayaa looga faa'iidaystaa siyaabo badan oo caafimaad. daawooyinka la isku qurxiyo ayaana qayb ka ah waxyaabaha laga kaashado baddan dhagxaanta ku jirta. waxaan ku soo koobayaa xogtan in badda dhimatay iyo deegaanka ay dhacdo intaba ay ka mid yihiin dhulka taariikhda kula diimaha kala duwan sida diinteena suuban islaamka, tan masiixiyadda iyo yahuudiyadda.